waxa uu ahaa ninkan Ciraaqiga ahi hilible muddo dheer ka shaqaynayay hilibka. Waxa uu soo qaadan jiray neef adhiya ama lo ah waanu qali jiray. Maalin maalmaha ka mid ah isagoo baabuurkiisii wata ayuu wuxuu arkay haweeney toorey ku taagan tahay oo laamiga ag fadhida. Baabuurkii ayuu ka soo degay isagoo isku dayaya inuu caawiyo. Waxaana markiiba gudagalay inuu ka soo saaro mindidii gabadha. Dadkii ayaa arkay markiiba waxaana ku tuhmeen inuu yahay kii gabadha dilay isagu. Booliskii ayaana meesha yimi waana ay rumaysan waayeen inkastoo uu u dhaartay. Waa ay xidheen boolisku ninkii muddo 2 bilood ayayna baadhayeen arrintiisa. Markaas kadib ayaa ninkii waxaa lagu xukumay xukun daldalaad ah. Markii uu soo dhowaaday waqtigii daldalaaddu waxa uu ku yidhi, waxa aan doonayaa inaad arrintan iga maqashaan oo iga qortaan inta aydan i daldalin. Waxaan ahaa buu yidhi ninkan Ciraaqiga ah nin ka shaqeeya doomaha yaryar ee webiga Furaad ka gudbiya dadka. Dadka ayaan gaadhsiin jiray ilaa dhinaca kale ee webiga. Maalin maalmaha ka mid ah aniga oo shaqadayda ku jira ayaa waxaa soo kortay laashkii yaraa gabadh aad u qurux badan. Gabadhaasi aad ayayna ii cajabisay. Markii aan geeyeyna waxaan kaga daba tegay gurigeedii si aan u shukaansado, laakiin waa ay i diiday. Muddo sannado kadib ayay naagtii waxay soo fuushay laashkii aan anigu watay iyada oo weliba wiil yar wadata. Wiilkana iyada ayaa dhashay. Waxaan isku dayay inaan haweeneydan kaga faa'iidaysto webiga dhexdiisa, laakiin waa ay i diiday. Arrintaasi oo aan marar badan isku dayay waa ay iga diiday. Waxaan ugu hanjabay inaan wiilkeeda quusinayo webiga. Lugta ayaan qabtay oo madaxa ayaan biyaha u geliyay. Marna waan ka soo saarayay, marna waan gelinayay. Wiilkuna aad ayuu u qaylinayay iyadoo ay arrintaasi socotay iyaduna aad ii sii diidaysay oo aanay marnaba ii soo dhowaanaynin. Ku hayntii aan wiilka madaxiisa biyaha ku hayay iyo cadhadaydii faraha badnayd waxay dhalisay in wiilkii uu warkii joojiyo. Macnaheeduna uu yahay inuu wiilkii meesha ku dhintay. Isla markaa waxaan gudagalay inaan webiga ku tuuro hooyadiina aan dilo. Kabacdiina aan anigu doontii yarayd iibiyo. Markaas ayaan gudagalay inaan noqdo hiliblaha. Waa anigan haddeer helaya jawaabta su'aashii aan berigaa diray oo ah inaan gabadhaa dilay iyo ilmaheedii yaraa. Jawaabteeni ay noqotay in aniga lay dilayo maanta. Laakiin arrinta gabadhan toorida lagu dhuftay anigu ma aanan dilinin ee ordo raadiya ciddii dishay. Aniguna waxaan xaqiiqsaday maanta in nin kasta oo wax dilay isagana la dili doono hadduu doono waqtigu ha dheeraadee. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. haddaba daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan subscribe saar si aan u soo badino muuqaalada noocan oo kale ah. Mahadsanid.